soo dhawaada Gateway horumar cusub oo ku soo kordhay magaalada Muqdisho iftiinka hal-abuurka horumarka iyo soo kabashada Soomaaliya waa mustaqbal cusub iyo ilaa soo hilaacay bartamaha Gateway waxa ku yaala hoteelkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee 5 star ah hoteelkan oo ka qabtiraya raaxo iyo soo dhaweyn heer sare ah waxa uu la jaan qaadaya hoteelada caalamiga ah ee dunida xarunta soo dhaweynta iyo shirarka waa goob caalami ah tii ugu horeysay ee laga hirgeliyay Soomaaliya waxa ay martigelin kartaa ilaa 5,000 oo ruux xaruntan ayaa noqonaysa rugta xafladaha caalamiga ah shirarka ganacsiga dabaaldegyada iyo xafladaha aroosyada iyo kulamada bulshada qaybta hoteelka dadka muddada dheer joogaya waxaa daryeel gaar ah iyo adeegyo hufan loogu diyaariyay martida deegaanadan gaarka ah waxa ay kaafinayaan baahida dadka musaafarka ah adiga oo jooga meel aad marti ku tahay haddana waxa aad moodaysaa in aad gurigaaga joogto oo kale dhismaha xafiiska Gateway waxa ay asaan u tahay dib u soo kabashada dhaqaalaha Muqdisho waxa lagu diyaariyay xarumo shaqo oo casri ah si loogu dhiirigeliyo hal-abuurka iyo wada shaqaynta waa ciwaanka cusub ee maskaxda ifaysa ee Soomaaliya iyo ganacsiyada hormuudka ka ah xarunta Gateway waxa ku yaala masjid lagu cibaadeysto oo loo doortay meel degan qaab dhismeedkiisuna aad u qurux badan yahay kaas oo looga kaaftoomayo in dadku ay xarunta dibaddeeda u aadaan masjid xarunta caafimaadka waxa ay leedahay cusbitaal heer sare ah oo leh ilaa 300 oo sariirood waxa laga heli doonaa adeegyo heer sare ah iyo takhaatiir aqoontoodu sareyso waxa ku diyaarsan xarunta daryeel heer caalami ah waxaana lagu qalabeeyay qalab caafimaad kuwii ugu sareeyay oo tiknoolajiyada ah bulshaweyntu waxa ay siinayaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran Gateway iyada oo mustaqbalka maalgelinaysa waxa ay leedahay dugsi loogu talagalay in lagu kobciyo maskaxda dhalinyarada halkan carruurtu waxa ay heli karaan manhaj sax ah iyo adeegyo waxbarasho oo casri ah iyo fursado ay ku noqon karaan hogaamiyaasha mustaqbalka guryaha waa kuwo wax weyn ku soo kordhinaya bilicda iyo muuqaalka magaalada Gateway waxa ay leedahay ilaa 200 oo guri oo si wanaagsan loo nashqadeeyay kuwaas oo mustaqbalkoodu aad u qurux badan yihiin waxa ku hareeraysan jardiimooyin doog ah iyo ubax aad u udgoon waa meel qoysasku ay degi karaan oo raaxo leh bartamaha Gateway waxa ku yaala suuq ganacsi oo laga heli doono adeegyada oo dhan waxaana ka howlgeli doono shirkadaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah waa xudunta dhaqdhaqaaqa iyo isku xirka Gateway waa ubuucda nolol wacan waxa aadna ka helaysaa madadaalo goob jimicsi beero aad ku ildoogsato iyo goobo degan oo ku cajibiya waa meel xasuusteedu aysan kaa go'aynin Gateway ma aha horumar keliya waxa ay bilow u tahay mustaqbalka Soomaaliya waa hilaaca Muqdishada maanta iyo awoodda weyn ee Soomaaliya waa halka ay riyooyinku ku beermaan fikraduhuna ka soo burqadaan mustaqbal ifaayana laga bidhaansan karo mar kasta ku soo dhawow Gateway wadnaha isbeddelka qaranka Gateway horumarka halkan ayuu ka bilaabanayaa